dowladdeena afkaarteedu inay tahay wadaniyad anu waxaan idin sheegaa waa kala doortay waqti horaan kala doortay qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo arag ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo arag mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragna oo aan qabiil ka aadin burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo arag oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awowgood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyaday sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 40 sano 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn weeye waxa qabiilku leeyahay marka aan wada qaadan dowladdeena afkaarteedu inay tahay wadaniyad anu waxaan idin sheegaa waa kala doortay waqti horaan kala doortay qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo arag ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo arag mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragna oo aan qabiil ka aadin burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo arag oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awowgood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyaday sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 40 sano 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn weeye waxa qabiilku leeyahay marka aan wada qaadan
dowladdeenna afkaarteedu inay tahay waddaniyad anugu waxaan idin sheegayaa waa kala doortay wakhti horaana kala doortay qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan kala doortay waxaan doortay qarankaan doortay waxaan ugu shaqaynayaa si waddaniyad ay ku jirtaan ugu shaqaynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqaynaya qofkii caqliga raba qabiil inuu dowlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo arag ciidan iyo dal ku dhisan waddaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii waddaniyadda laga tegayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awowgood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay waddaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday dee waxaa soo gelaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo keliya waa wixii 40 sano 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn weeye waxa qabiilku leeyahay marka aan wada qaadanno